السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي qaaliga meel kasta joogtiin soo dhawaada channelkeeni xarunta cuntada caafimaadka walaashii shukri aadan buule asxaabta qiimaha badan ee dhinaca hawada nagala socota soo dhawaada ay dhahaya meel kasta ka joogtiin waxaan rajeynayaa caafimaad iyo barwaaqo bashbash maanta toobigeen wuxuu noqonayaa hooyada uurka leh asmaamayaasha ku garanayso ama calaamadaha ku daranayso markay foosheeda soo dhowdahay waxaa laga yaabaa 38 ama 37 ama 38 waqtigaagu aad u soo dhawaaday calaamadaha lagu garto ayaa jiro because calaamadahaas waa inay la wadaago dabdan ay maanta ku soo wadiina ku ahaayo waa calaamadaha markaan hooyo yar jiro oo ka seenin oo markii ugu horeysay tahay soo dhawaada indhahaya calaamada ugu horeysa waxa waaye in dhowdahay foosheeda aad u soo dhowdahay wax ku ogaan kartaa appetite laan ayaa kugu dhacayso qofkaas appetite-ka ayaa ka xirmanayo waxyaalaha kale lagu garto dhabarka ayaa aad iyo aad ku xanuunaya ama mindhicirka waa labada meel ee dadka ka fooshaan waxa kale lagu gartaa asxaabta qaaliga ah inay lugaha simaha aad iyo aad culays iyo xanuun badan aad ka dareemaysid waxyaalahaas dhan waa waxyaalaha calaamadaha lagu garto qofka inay hooyada noqoto emotional waxa laga wadaa inay aad iyo aad maanta dhan u ooynayso ama ay dareemayso xasaasiyad jirkeeda ka soo baxayo wax maxaa la dhahaa emotional af Soomaali maxaa la dhahaa af Soomaaliga dhinaca galay ay soo sheegi doontiin inay dareemayso maanta dhan buuq ama ooyin ama waxaas waa normal markii waqtigeeda soo dhawaado culays aad u fara badan inay cuntada ka hartaa dhahnay hurdada inay ku yaraato waxyaalaha kale lagu ogaado waxa kamid ah asxaabta qaaliga ah asmaamayaasha kale asxaabta waxa kamid ah caloosha lagu soo boodaya caloosha xanuunaysa maanta dhan musqusha ku cararaysa musqusha maanta dhan way saxaroonaysa saxaradaas waxay ku tusaysaa inay soo dhawaatay maxaa la dhahaa calaamadaha ku dhaliilkeeda ay kamid tahay asxaabta marka saxaradaas badan waxay ku tusaysaa jirkii ayaa is dhaqaayo oo is nadiifnaa qof kasta ma helo laakiin dad kale oo dad badan waxa jirsaas ku dhacdo oo qofka maanta dhan dumarka ay ku waalanayso maanta dhan inay saxarooto caloosha furmanayso maanta dhan musqusha gelaysaa iyadan waxay kamid tahay calaamadaasha inay foosha soo dhowdahay waxa kale dareemaysaa maanta dhan kaadi waalan oo because bladderkii ama meeshii kaadida cunugi ayaa ku seexda weynaaday soo maanta dhan xitaa iyadoo kaadi ku haynin musqusha ayaa maanta dhan ku jirtaa wax aad xitaa kaadi oo biyo xitaa cabin waxa laga yaabaa maanta dhan musqusha ka soo bixi ka soo habeenkii masiixanisid maanta dhan musqusha galay waa soo laabanay kaadi u maleysa laakiin ma aha waa qaskii oo ilmihii ku jiifay oo cadaadinayo halkaas pressure ay ka dareemaysaa marka waxyaalaha kale asxaabta qaaliga lagu ogaado inay soo dhawaato waxa kamid ah hooyada waxa ku bilaabanay construction waxa la dhaho construction waxa laga wadaa xanuun sida markay gabadha caadi helayso kale dhabarka iyo maanta dhan xanuun ka dareemaysa iyo mindhicirka xanuun xoogaha waalan Soomaali xiraan foljajab lahaa foljajabka wuxuu ku bilaadaa 8 bilood ama 8 bilood iyo markay xoogaha dhaafto inta 9 bilood gaarinba waxa laga habeenkii dhan badana habeenkii ayay ku bilaamataa maxaa la dhahaa dhabar xanuun aad iyo aad u xanuun badan iyo mindhicirka laga haayo waxaas waxay ku tusaysaa fooshaadi ayaa soo dhawaatay is diyaari gabar yahay waxa kale ee hooyada dareenta markay foosheeda soo dhowdahay ayaa la dhahay markasta waxay dareemaysaa maxaa la dhahaa inay maanta dhan kuwan waa kuwa ku prepare gareynay in ku ogaatid maaha foosha saxda ahayd foosha saxda natural waxa ogaanaysaa biyihii ayaa jabaayo dheecaan badan ayaa hoosta ka imaanaya ama dhiig ama wax kale waa kala mid kan laakiin kuwan hadda ka hadlayno waa asmaamayaasha ku garanaysid inay fooshaada soo dhowdo waxa laga yaabaa bishii 8aad ayaa ku sii dhamaanayso ama bishii 9aad ayaa hadda gashay waxyaalaha aad isku sii ogaanaysid ama isku sii taxadaraysid inaa fooshaada soo dhowdahay waay waxaan asmaamayaal isku madax xanuun badan ina maanta dhan iska oynaysid qofadu ku agmara iska xanaaqaysid cuntadiyo ka istaagtay hurdo la'aan maxaa la dhahaa caloosha maanta dhan ku furmanayso culays aad iyo aad u fara badan lagu oo simiyo ku xanuunayo waxyaalahan oo dhan waxay kamid yihiin waa asmaamayaasha lagu garto fooshaada aad ay u soo dhawaatay waa inaa markaas bilowdid inaa ogaatid waqtiga noqoto waa dhali kartaa inaa alaabtaada hagaajisatid adigii is diyaarisid maskaxiyan iyo jir ahaan exercise la sameeyo jiro socodka aabadisid oo socodka daabadisid foosha ku fududaanaysa marka asxaabta qaaliga ah waxaan rajaynayaa hooyooyinka yaryar iyo kuwa kaleba inay wax ka faa'iideen meesha nagala socotiin waa xarunta cuntada caafimaadka walaashin shukri aadan buule halkaas ay